xaflad aad u ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen ururka nabadeynta iyo horumarinta Soomaaliya oo fadhigoodu yahay magaalada Copenhagen ee xarunta wadanka Denmark laguna taageerayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu qabtay isla xarunta magaalada Copenhagen ee wadanka Denmark. xafladani oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay kamid ahaayeen siyaasiyiin, culmaawdiin, aqoon-yahano, waxgarad iyo haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Copenhagen ayaa waxay hambalyo iyo bogaadin u jeediyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, iyagoona ugu hambalyeeyay guusha u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed oo iyagu wadanka gudihiisa ku doortay madaxweyne cusub. mudane madaxweyne waxay Soomaalidu kuma mahada farkaliya fool ma dhaqdo hadaba waxay Soomaalida ka sugaysaa ra'iisul wasaare marka aad magacaawdid loogu riyaaqo sida adiga lagu riyaaqay. dawlad waxay ka dhisan tahay waa saddex waxa weeye legislativo waa baarlamaan, juridika waa dadka fulinaya sharciga iyo administration. هذا برلمانك وإنه بسيء يعني وحائنا كم هاي ده هسكله نقاليه عيكوها وقال لهاي وحال ذيك عد صنايا ضد كأن غربها جوجا دولة ده عسكرتو العقبة يوبهانتها محوها معلمين العقبة يوبهاي إلى أن العقو تاجر. إلهي وحنا قبر مدحوينه حسن شيخ محمود كين جرو جوجو إنه إلهي كدقه. مستر جواري أساقنا سيدا سوكالة دولة دين الصومالي اسكدوبني يود جر راس عسير إلى راس كمبوني نبت قارتان إلهي قبر annaguna waxaan rajaynaynaa dibad iyo gudaha wixii joogaba inaan u duceeyno khayrna Allah idin siiyo sidaad u taageerteen idinkoo jooga Scandinavia magaalada Copenhagen. aad weyn ka faraxsana dawladda cusub oo dhalatay oo wadankan cusub ka dhalatay ilaahay ka dhigay dawladii una ka riyaaqna oo macnaha wadanka walan qabato oo dadku walan qabato. hadan waxa ka dambeeyay ururka magaciisa la yahay ururka nabadeynta iyo horumarinta koonfurta Soomaaliya waxaana ka ahaa gudoomiyaha guddiga qabanqaabada aniga ayaa ahaa waxaan dhamaan mobilize gareynay community-ga degan Denmark oo dhan haweenka dhalinyarada gabdhaha ragga odayaasha kulli waa mobilize gareynay aad iyo aad ay ugu faraxsanaayeen wayna ka soo qayb qaateen aad iyo aad ayna shucuurtooda u muuqataa maanta. xafladani ayaa inta ay socotay waxa lagu soo bandhigay waxyaabo kala duwan oo runtii dadkii ka soo qayb galay aad u qiiro galiyay. dadkii ka soo qayb galay qaar ka midana waxa ay sheegeen in hogaankani uu yahay hogaan cadaalad ah oo si xor ah loo soo doortay maadaama ay yihiin wajiyo ku cusub siyaasadda dalka waxayna xuseen in ay la shaqeyn doonaan isla markaana ay taageeri doonaan waxayna ugu baaqeen shacabka Soomaaliyeed oo meel kasta dunida daafaheeda ka jooga in ay taageeraan dawladda cusub si ay u gudato waajibaadka loo igmaday. Sahra Maxamuud Cali, TV-ga qaranka Soomaaliyeed, Copenhagen, Denmark.